ka fikir dunida maanta korontada raadiyaha gawaarida casriga iyo internetka dhammaan waxyaalahani waxay ka mid yihiin hirooyinkii Nikola Tesla oo ku arki jiray maskaxdiisa asagoo indhaha xiran asagoo nool xili aynan dad badan fahmin waxa uu sameynayo wuxuu ahaa riyoole hal abuure iyo saynisyahan ku qanacsaneen xaddiga caadiga ah ee dunida waxaa la sheegay inuu arki jiray qalab iyo mashiino cusub ka hor inta uusan dhisin asagoo maskaxdiisa ay u shaqeynaysay sida kombiyuutar casri ah fikradihiisu waxay ahaayeen kuwa ka horeeyay waqtigiisii 10 sano haddii maanta la fahmay xilligii uu noolaa wuxuu u muuqday sixir amaryo aan macquul ahayn laakiin nolosha Tesla ma ahayn shay ka fudud inkastoo hindisay nidaamyo koronto oo dunida bedelay uu ka shaqeeyay raadiyaha isgaarsiinta aan xaddiga lahayn wuxuu la kulmay faquuq qalinimo iyo kalsooni daro dadka qaar ka timid taas ayaana ka dhigtay sheekadiisa mid xiiso leh ninkii riyoonayay wuxuu noqday ninka dunida wax ka bedelay asagoona mar walba ku adkaystay fikirkiisa waa idin salaamay daawadayaal magacaygu waa Xaliimo Daawud inta gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inaado channelka laagtana diisarto channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon dambiyada qarsoon ee xogaha caalamka markaana noo bilaabo sheekadeeni maanta Nikola Tesla wuxuu ahaa mid ka mid ah maskaxdii ugu yaabka badneed ee dunida soo martay taariikhahana badan iyo qoraale cilmiyeysan waxay ku tilmaameen ninkii mustaqbalka ka yimid sababtoo ah fikirkiisu wuxuu ka horeeyay waqtiga uu noolaa 10 sano wuxuu dhashay 10 Julaay sanadkii 1856 wuxuu ka dhashay qoys weyn aabihiis wuxuu ahaa wadaad iyo qoraa halka hooyadiisna ahayd haweeney aan waxbarasho rasmi ah helin balse lahayd maskax hal abuurnimo oo xoogan mar walba wuxuu sheegayay in hooyadiisa ay ahayd macalinkiisii ugu horeeyay ee cilmiga caruurnimadiisii wuxuu lahaa xasuus aad u xoogan iyo awood oo maskaxdiisa ku arko sawiro cadcad wuxuuna qalab iyo mashiin ku naqshadeyn jiray maskax ahaan ka hor inta uusan weligiis dhisin tani waxay ahayd awood aan caadi ahayn markii uu weynaaday Tesla wuxuu bilaabay in waxbarasho ku saabsan injineernimada ay korontada wuxuu wax ka bartay dalal kala duwan oo Yurub ah asagoona si gaar ah u xiiseynayay sida korontada u shaqeynayso iyo sida loo gaarsiin karo dad badan sanadkii 1884 wuxuu u guuray Mareykanka asagoo wata warqad tala bixin ah wuxuu halkaasi kula kulmay mid ka mid ah maalqabeennada oo xilligaasi ahaa nin caan ah kana mid ahaa hormuudka korontada DC kadib wuxuu u shaqeeyay Edison balse khilaaf xoogan oo ka dhashay lacag fikir Edison wuxuu diiday inuu aqbalo aragtida Tesla ee AC power taasoo keentay in Tesla shaqada ka tago halkaas ayuuna ka bilaabmay waxa taariikhda loo yaqaan dagaalkii korontada Edison wuxuu difaacay DC halka Teslana uu ku adkaystay in AC ay tahay mid ammaan badan jaban kana waxtar badan gaarsiinta korontada masaafo dheer ganacsadaha la oran jiray George ayaana rumaystay Tesla wuxuuna maalgeliyay fikirkiisa taasoo keentay in nidaamka AC lagu guuleysto ugu dambeyn dunida waxay aqbashay AC waana nidaamka maanta dunida oo dhan laga isticmaalo guushan kadib Tesla wuxuu noqday nin caan ah muddo gaaban balse ma ahayn mid lacag jecel wuxuuna ka tanaasulay malaayiin dollar si fikirkiisa loo gaarsiiyo dadweynaha tani waxay noqotay sabab uu mar dambe faqri ugu dhinto Tesla wuxuu hindisay waxyaabo badan ee ka mid yihiin motorka AC raadiyowga remote control iyo wireless communication qaar badan oo ka mid ah fikradahaasi waxay si buuxda loo fahmay kadib geeridiisa mid ka mid ah riyooyinkiisa ugu weynaa wuxuu ahaa in koronto bilaash ah dunida loo gudbiyo iyadoona hawada loo marayo wuxuuna bilaabay mashruuc weyn balse maalgelintiisii waa laga joojiyay sababta mashaariicdaasi u fashilmay waxay ahayd in maalqabeennada aysan ka arag faa'iido dhaqaale Tesla wuxuu u adkaystay koronto inay tahay xaq bini'aadam halka ganacsatadana u arkayeen badeeco la iibiyo sanadihii dambe ee noloshiisa Tesla wuxuu ku noolaa hotel mararka qaarna xitaa ma awoodin inuu iska bixiyo kirida inkastoo maskaxdiisu shaqeynaysay dadkiisana kuma baraarugsaneyn wuxuuna waqtigiisa intiisii badan ku bixin jiray shaqo iyo fikir wuxuuna rumaysnaa in fikirkiisa iyo hal abuurka u baahan yahay aamusnaan sanadkii 1943 waxaa laga helay asagoo dhintay qol hotel ah oo ku yaala New York wuxuu dhintay kaligiis
isagoo sabool ah balse taariikh ahaan qani ah. Kadib geeridiisii, dowladda Mareykanka waxay heshay qaar ka mid ah warqadihiisa, taasoo dhalisay sheekooyin badan oo sir ah. qaar waxay rumaysan yihiin inuu lahaa fikrado khatar ah oo badan. sanado kadib, dunida waxay bilowday inay dib u qiimeyso Nikola Tesla. Magaciisa waxaa loo bixiyay cutubka Tesla ee cabira xoogga magneetikada. shirkado casri ah, jaamacado, saynisyahano ayaana maanta u arka Tesla aabaha tiknoolajiyada casriga. waxyaalo badan oo maanta caadi ah ayaana asal ahaan ka yimid maskaxdiisa. wuxuu noqday tusaale cad oo muujinaya in qofka ugu weyn mararka qaar uusan helin aqoonsi waqtigiisa, laakiin taariikhdu mar walba waa cadaalad. Tesla maanta waa halyey dunida wada leh. mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badnaa ee Tesla lagu xasuusto ayaa ahaa awoodiisa maskaxeed. wuxuuna sheegay inuu si buuxda maskaxdiisa ugu tijaabin karo mashiino ka hor inta uusan weligiis dhisin. qaar ka mid ah taariikhyahanada waxay tan ku tilmaameen simulation maskaxeed, taasoo maanta tiknoolajiyada casriga lagu daydo. Tesla wuxuu aad u necbaa buuqa iyo jahwareerka, wuxuuna ku noolaan jiray jadwal adag, wuxuuna aad u jeclaa nadiifnimada iyo kalinimada. xitaa waxaa la sheegay inuu ka xumaado tirooyinka gaar ah, taasoo ka dhigtay qof aad u nidaamsan. inkastoo ahaa saynisyahan, Tesla wuxuu ahaa dhinac falsafadeed. wuxuu rumaysnaa in cilmiga u adeegayo bini'aadamka, balse uusan noqon mid kaliya faa'iido dhaqaale lagu raadsado. fikradan ayaana sababtay inuu iska diido maal iyo magac. marar badan waxaa lagu eedeeyay inuu yahay qof riyoonaya, balse riyooyinkiisa qaarkood maanta waa xaqiiqo. internetka iyo xitaa tamarta aan xaddiga lahayn dhammaantood waxaa la xiriiraan aragtidiisii hore. dad badan ma oga in Tesla uu si weyn ugu soo horjeestay dagaalada, wuxuuna aaminsanaa in cilmigu joojin karo colaadda haddii si sax ah loo isticmaalo. inkastoo qaar ka mid ah fikradihiisa la xiriireen hub difaaca, ujeedkiisu waxay ahayd nabad. sanadihii ugu dambeeyay, Tesla wuxuu bilaabay inuu si dadban ula hadlo warbaahinta, isagoona ka shaqeynayay fikrado mustaqbal fog. qaar ka mid ah wargeysyada ayaa ka dhigtay mid lagu qoslo, halka kuwo kalena ay ku tilmaameen nin waalan. taariikhduse way bedeshay aragtidaasi. waxaa jiray buugaag badan oo uu isaga qoray iyo buugaag kale oo ay qoreen taariikhyahano. dhammaantood waxay isku raacsan yihiin in Tesla ahaa qof si weyn loo dulmiyay. dowladda Mareykanka markii uu dhintay kadib waxa ay la wareegtay waraaqadihiisa, taas oo dhalisay dood dheer. qaar waxa ay aaminsan yihiin in xogtaasi ay ku jireen fikrado halis ah ama awood leh, inkastoo caddeyn buuxda loo heenin. maanta wuxuu noqday astaan dhalinyarada, hal abuurayaasha iyo dadka dareema in la fahmi waayo waxa uu taagan yahay. qof ku adkaysta fikirkiisa xitaa markii ay dunida diido. marka la isku daro dhammaan noloshiisa, Nikola Tesla ma ahayn oo kaliya saynisyahan, wuxuu ahaa fariin nool oo muujinaya qof saboolnimada loo tuuray oo bedeli karo mustaqbalka aadanaha.